السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا داودياشينا قيمها بدن برنامج كان جاركي وأنا أقول دونو حالة دورشة سوماليا وحلا سعتان إن دلكو كلي جوي دورشة وكو باللابتي حلبانا دا أقل كسره كنا حي دونتو حلبانا دا أقل كهوسة سيوصو دورتان مدحوينها جمهورية فدرالك سوماليا مداني لبكون لباتني كو لبكون لباتني أفر حلكا مدحوينها هين دور وحا لو barnaamijkan magaciisu waa yaa mudan in uu bulsho hogaamiyo yaa mudan in uu kursi umadeed ku fariisto yaa mudan in uu kursi deegaan doorasho ku fariisto laga bilaabo xilka kursiga deegaanka ilaa laga gaaro xilka dalka ugu sareeyo oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku fadhiisan doono waxa igala qayb gali doono xalqadan fadiilada sheekh ad-daaciya Cabdullaahi Xambali oo ah daaci Soomaaliyeed mujtamaca Soomaaliyeedna wax badan ka qoray ahna qoraa luqadaha Carabiga iyo af Soomaaliga wax ku qoro sidoo kale al-ustaad Xasan Qorane oo ah qoraa Soomaaliyeed luqadaha Carabiga iyo af Soomaaliga wax ku qoro carwooyinka wadamada Carabtana lagu soo bandhigay buugaagtii uu qoray haddii aan ku bilaabo fadiilada sheekh Xambali yaa mudan fadiilada sheekh in uu bulsho hogaamiyo in uu kursi umadeed ku fariisto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مركب كوباد إلهي بام هذا سكله سبحانه عز وجل أستاذ سليمان أدب أدوكم هتصنتهاي مرتقات كان يو حوار كان السجعة صاحبك أستاذ حسن قرنة ومارتي ما شاء الله يقلق قيب قلينا وسلامية داودياش السيدة وكلا يعيد لقيا بيني وير ديبك قادبة yaa mudan in uu xil qabto ama xil loo magacaabo marka koobaad mas'uuliyadu asalka mas'uuliyada waa laga cararaa ee looma ordo maxaa yeelay magaceedaba mas'uuliya la yiraahdaa waa la isweydiin doonaa waqifuhum innahum mas'uuluun marka haddii xaqiiq ahaan loo fiiriyo waa dhib iyo imtixaan laakiin dadku ma garanayo aad ba hadda loogu yaacayaa yaa mudan haddii aan ka jawaabo su-aashaas waxaa mudan qofka marka hore ilaaliya xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka xaqa rabbi subxaanahu wa tacaala ilaaliya ayuunbaa xaqa addoommadana ilaalinaya marka qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqaya og inuu ilaahay muraaqabaynayo subxaanahu wa tacaala og ilaahay inuusan been u sheegi karin بل الإنسان على نفسه بصيرة قف والبنا وسوقيه قف نفتيسة قف والبنفتيسة أوية قانا مركا قف الله كبقى أو تقيئة تقوض وقف دبرا التقي ملجم سياسي مارتي تابعي ها عمر بن عبد العزيز التقي ملجم وقف دبرا قف إلهي كبقية الله كبقي دون حاوية إن أكتها إنه الله كمراقبين أيو إنه إلهي كحسابين أيو إنه إلهي كاور هيو سيدو كلنا ummaddu waxay ku heshiisay iyo institutionada jira og inay la xisaabtami doonaan qofka arrimahaas ilaalinaya way qofka mudan in la doorto sidoo kale waa inuu noqdo qof ku tilmaaman run iyo nazaaha oo aan dambiile ahayn oo aan waxyaabo hore u gelin dambiye wadanka aan ka gelin hadduu ka galayna ka toobad keenay lagana saamaxay biidin illaahi tabaaraka wa tacaala waxaa mudan in la doorto min baabi يعني آية القرآن كهيد إلهي سبحانه وتعالى أهل المعرفة يدات العلم مركه له يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سوما هين مركه تشرنت دكتور قلت جيسا مركه قفك كه هبيسن علمك السياسة ده علمك بالشدة يومضوا السدة وهنقطه قف كور هيو كه هبيسن أيام مدن إن لا دورته qof ku tilmaaman waxa afka Carabiga lagu yiraahdo al-muruna flexible ah oo yaani aan mara ku dhag ahayn macangag aan ahayn ana iri uun aysan ahayn dictator aan ahayn dadka la tashada afkaartii hore ka tanaasula marka ay u cadaato inay sidan maslaxa ay tahay oraha waxa jirta Soomaalidu ay aad u taqaan oo la yiraahdo wartala beele laba tala dhaxdood soo tala kaaga ma dhalato waxa weeye shalay wixii aad dadka u sheegtay ayaa waxa ku soo baxay wax kale oo ka qiimo badan marka qof muruuna leh oo tanaasul leh oo maartay wuxuu kala cadaanaya soo hor bedeli karo
ها رأيك سورة بدلك haday u muuqato inuu khaldan tahay نعم markay u cadaato inay waxyaabo kale qofka noocaas oo kale weeye qofka khilaafaadka daakhiliga ah Soomaalidu waxa weeye waxay wax u dirsanayaan mararka qaar qof qabiilkiisiiba ku soo fashilmay qof ururadii siyaasadeed uu ku jiray ku soo fashilmay tayaraadkii diiniga uu ku jiray ku soo fashilmay qof noocaas kale wax u dirsanayaan maamada kii geela oo qostaan bay ariga u diraan oo kale marka qof yaani la og yahay inuu reerkiisa ka soo adkaaday annaga qurbaanu joognay waxaan arkaynay annagoona walasna bishaamitiin dad yaani usradoodii ku fashilmay ayaad wax arkaysaa Soomaaliya kuraas ka raadinaya oo xitaa waa ehelkoodii waa xaasaskoodii iyo caruurtoodii bay ku fashilmeen inay tarbiyayaan ama ay ka soo maaratay meel cid looga soo tageen marka qof yaani maarayn kara khilaafaadka daakhiliga qofkaas mudan in la doorto qof yaani leh ruuxu tashaawur wal xiwaar وشاورهم في الأمر وحلوي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أكبر سياسي عرفته التاريخ المؤيد من فوق 7 سماوات وإلهي حتى وحيابا خلاف الأولاد كأمرك هرير مر إلهي وتوسيني يا وحلوي وشاورهم في الأمر قف مركا وضطش له روح الحوار له أن عندنا فوقينين أن عندنا سود ويسنين رأي قيمها بدن وعد يقف كاسا مدن إلا دورت قف دقيقة ولا يترك التفاصيل ولا يترك شيئا سياسة دي سنة عدها سومالي waxay tiraahdaa qalin waxa la yiraahdaa wareer magaal warqad buu ku yaala qof balaan leh ajanda leh siyaasad leh siyaasadiisu ay u qoran tahay maalinka la doorto ilaa maalinka uu xilka wareejin doono waxa uu qaban doono ay u qoran tahay lagana la xisaabtami doono qofka way qofka mudan runtii in la doorto adduunyadan waxaad moodaa zaman ka dambeeyo ka sii dhib badan yahay marka man yatawaqqa al-azamat waladayhi al-hulul qof og inay dhibaatooyin goboleed dhibaatooyin caalami dhibaatooyin daakhili ah dhibaatooyin goboleed ay ku iman karaan xuluushii uu ku xalin lahaana ay u sii diyaarsan tahay qofka way qofka mudan in la doorto marka ugu dambeysana waxaan ku soo khatimayaa qof ku tilmaaman dulqaad iyo deeqsinimada ma aha in xoolihii ummaddu ay leedahay dadka aad ku farqdo ma aha wax ka siisa ma inaad dadka hadalka u ogolaato waa deeqsinimo inaad kuraasta dadka u ogolaato waa deeqsinimo in aad maaratay dadku waxay xaq u leeyihiin aad siiso oo waqtigooda siiso waa deeqsinimo in xoolahaada waxa dad wax haysato maalinka lagu dooranayo horta in lagu xisaabiyo lagu yiraahdo maxaad hanti haysataa maalinka aad ka tagaysana lagu yiraahdo maxaa tabcatay in sidaas shafaafiyada ay jirto qofka marka dulqaad kale waxa way bil badli wal hilmi saad al fatah fi qawmi soomahayn qofka markaas dulqaad kale ee ummadiisa wax u quuraya ee waqtiga siinaya cadaalad iyo maaratay wanaag kula dhaqmaya xukunkana wanaajiya qofka way qofka run ahaantii in la doorto mudan ilaahina waxaan ka baryaa subxaanahu wa azza wajal inuu kaas oo kale subxaanahu wa ta'ala talada noogu dhiibayo kuwa la mid ah aamin ya rab aad u mahadsan fadilada sheekh Xambali tilmaamo waxaad sheegtay aad u baahsan oo maxaa la dhihi jiray bulshada Soomaaliyeed u baahan tahay laakiin waxa muuqataba inaanan macaayirtaasi tilmaamahaasi aad sheegtay aanan lagu dhisayno macaayir kale halbeegyo kale lagu qiimeynayo siyaasadda Soomaaliya waxaan rabaa inaan isla su'aasha aydeedo kale ku soo celiyo ustaad Xasan Qorane bulshada Soomaaliyeed in ka badan rubuc qarni ayay waxay la daalacaysay dhibaato dawlad la'aan ka soo gaartay dawlad kasto imaado balama ay qaadaysay maalinka dawladda burburtay ka dambeysay ilaa ay maanta balama ay qaadaysay waxa ugu badnaa balamaha doorashada maanta ay ka hadlayno inay dadka gaarsiin doonaan doorasho qof iyo cod ah 2021 la maraya walina meeshii looma dhaw ayaa la dhihi karaa ama lama gaarin yaa maanta mudan inuu kursi umadeed ku fariisto bismillahir rahmanir rahim Sulayman adiga iyo warbaahinta miskiba labadina waan runtii waan islaamaya waan inii bogaadinaya wallahi horta marka ay ummad burburto ay dagaal gasho mafaahiim badan ayaa isbedesha waxaa burbura waxyaabo badan oo halbeeg oo bulshadu ay ku halbeegi jirtay sidaan u hadli lahayn Soomaaliya iyo Soomaali oo nabad ah oo dawlad ka jirto oo bad qabta oo aan isdagaalin way ka duwanaanaysaa sidaan hadda u hadlayno sababtoo ah wax walba ay ummadu lahayd oo diina oo dhaqana oo sooyaal ah oo dabar ah oo wuxuun celiya ah runtii meesha way ka baxday Soomaalida maanta aan la hadlaynana
badankoodu maba ahaba dee Soomaali bad qabta yani inta badan si guudna waxaa la dhahaa laba meel Soomaalida gashay ama ay ku jiraan waa Soomaalida laga yaabo inay yihiin dadka ugu tayada xumaa waxay Soomaalida waa siyaasadda iyo fanka yani siyaasadda iyo fanka waxaa gala badanaa waxaa gala qof shaqo waayey ayaa siyaasadda shaqo u raadsada بالعكس waxay ahayd qofka markuu siyaasad galayo in uu noloshiisa soo sheekhu sheegay uu wax macna leh nolosha uu sameeyay qofkii oo la garan karo dhihi karo wax muasasa ama wax jirta ama wax barasho ama dhaqaale ama wax buu qofkan soo kiciyo ka soo shaqeeyo khibradeeda leeyahay marka waxay noqotay meel qof kasta oo shaqo la'aan iyo qof kasta oo madadar ah oo runtii iska galay noqotay waxaa ka xigta maanta inaad suud xirato kadibna si siyaabaha kamid ah xoogaa lacag u keensato kadibna aad lagu doorto madaxweyne adoo laga yaabo inaad gudoomiye degmo marka hore rabtay si mafjaa lagu doorto ha sudfa kida yani adoo waxa soo maran oo waxba aan noqonin inaad wasiir ra'iisul wasaare madaxweyne xildhibaan ka bilow shaqooyinkan waxay ahaayeen hadda waxaad arkaysaa nin dhalinyaro oo 30 sano xataa gaarin oo meelaha ugu sarreeya u tartamaya waxay qofka inuu soo dhiso yani taa waxay ku tusinaysaa mafaahiim badan inay naga khaldan tahay yani hadda xildhibaan oo kale waa shaqooyinka ugu dambeeya la qabto yani qofka dhalinyarada ahaa asaga baa isdabraya asaga baa isxiraya waxay ahayd inuu qofku soo shaqeeyo khibrad soo qaato way aragnimo yeesho siyaasadii galo wax ogaado wax fahmo kadibna uu xildhibaan iyo wixii ka sareeyay iyo safiiri waxaas uu tartamay ahayd laakiin qofku waxaad moodaa inuu rabo meesha u sareyska bilaabo marka aniga waxaa ila tahay badanaa marka bulsho xanuunsan oo aan bad qabin waxyaabahan ka sheekeynayno waxay u muuqanaysaa wax iska mithaaliyaada yani wax laga yaabo inaan bal helin ayay u badanaysaa laanna waxa aan ka sheekeynayno waa qawaacid laga heli karo bulsho caafimaad qabta laga heli karo taas macnaheedu maaha in Soomaali oo dhan ay ka aradan tahay Soomaali oo dhan laga waayayo qof tilmaamaha leh ma aha laakiin inta in la eeg ayaa maanta siyaasiyiinta saaxada ku jira aan ka heli karaa tilmaamaha leenahay koow waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka mudan inuu xil qabto aayadii quraanka meelo badan waxa ku soo arooray alqawi alamiin xafiid amiin suurado badan ay ku soo arooray koow qofku waa inuu yahay qof awood leh awood waa maxay awood jiraad koow qofku waa inuu leeyahay yani qof aan awood jir lahayn oo aan soo jeedi karin oo aan wax qaban karin oo aan dadaali karin oo aan socon karin oo aan safri karin kaa kuma jiro awoodda waxaa ka mid ah inuu qofkii leeyahay ha iyo may qofkii uu leeyahay inuusan qofkii ahayn dameer dhaan raacday qof aan ahayn inuu yahay qawi waxaa ka mid ah inuu qofkii leeyahay go'aan inuu leeyahay qofku qawi waxaa ka mid ah qofkii inuu wax bixiyo sheekh sheegay laana hadaadan lahayn ku dhac hadaadan lahayn iyo hal adayg wax bixintu aad bay u badan tahay mararka qaar ka horta qofku inuu yahay qof awood leh qofku inuu yahay laba qofku inuu yahay qof amaano leh qof amaano leh oo wax lagu aaminayo ama hanti ahaato ama caraad ummadda ahaato ama taariikhdooda ha ahaato ama diintooda ha ahaato ama dhaqaalahooda ha ahaato ama ilaalinta jiritaanka Soomaaliya ahaatee qof amaano leh oo wax loo dhiibay yani haddii loo dhiibo qof aan ogeynba waxa meesha ka socda qof aan ogeynba Soomaalnimo waxay tahay qof aan ogeyn islaamnimo iyo diin waxay tahay qof aan ogeynba ama aan ku baraarugsanayn in shacabkan uu asagu mas'uul ka yahay haddii loo dhiibo meeshii waxaa ka dhalan kara waxyaabo runtii aan fiicnayn labo saddex aan dhahayaa waxay ila tahay in uu qofkii yahay qof waaye arag ah oo bisil oo khibrad leh oo mashaakil waxyaabo la yaab waxa kamid ah nin aan waliga xitaa guursanin baa hadda xilal waaweyn u taagan xirad qofku waa inuu xaafad soo xaliyo ugu yaraan waa inuu reer dhaqo waa inuu caruur iyo famil u samaysto yani qofkii oo noloshiiba ku cusub ayaa wuxuu ka bilaabayaa siyaasadii meesha ugu sarreysay qofku horta waa aragnimo leeyahay waa in aan dhahi karno qofkan waa qof bisil oo noloshu muctarak alxayaat ay noloshu soo cajintay oo mashaakil soo xaliyay oo indhaha u furan yihiin oo yani wax og qofku waa inuu yahay يعني نين أن ولي وحبوجين أو خبرة لهين أو عن مشاكل لصون نورين هدي وسشرح ماشي وصل رئيس أما حلوان أما مدح أما يعني وحلا مذا وحيا بس رمتي وحين قريسة وحن صحين قطبك لو حاول قف دين لو إنه يعني الصومالي ذي وحكوا بعد إنه هيصنوا آخرية الدنيا نافعية وإنه قف دين له دين ومحي دين توحكا على نيسا إن وحيا بدن oo takrifa la aad sameysay diintu ka celinaysa soo sheekhu sheegay diintu waa dabar waa inay ku dabarto hadaa rabto in qof dulmi ku disho ama aad ku dhacdo ama aad ku xumayso waa inay diintu ku diido
laakiin taa waxaan isdhahaynaa seebuu qofka kusoo bixi karaa asaaskaba waxaan siyaasadda soomaalidu asaaskeeda ayaa wuxuu yahay faasid wax khalada wey macnaha laanna waxaa lagu soo baxayaa shiraa'u dimam yani qof la gatay qof lacag laga bixinayo qof aad og tahay inuusan dal iyo dad waxba usoo kordhinaynin ayaa qofkii dooranaya ama xildhibaana ama erge ah wuxuu ka qaadanayaa lacagtaa darteed kusoo bixinaya yani waxaan dhihi karnaa qofka Soomaaliga ah ee naziha ee shariifka ee fiican ma tartami karaa maanta asagoo dhiiqadaas lugta la gelin way adag tahay ayaa la dhihi karaa laakiin saas oo taadana waa in qofku leeyahay waasic diini ah oo waxyaabaha xun ka celiya waa laana fiiri diin ahaan waa in aad matasho hadda adduunka waxa ka socda Olympiyada Tokyo wadan walba markuu galayo wuxuu wataa dar lagu yaqaano Soomaaliya idrees lagu yaqaano marka aad Soomaaliya madaxweyne u noqonayso waa in horta islaamnimo iyo diin ay ka muuqato laana dadka aad matalayso waa dad diintu ay u tahay laf dhabar hadda iyo weligeedba ay u ahaan laf dhabar marka waa in horta diintu ay laf dhabar ku tahay aad ku dhaqmayso ummadana aad rabto inaad ku hagto taa macnaheedu waxay aan boqolkiiba boqol aan waxa aan sameeyno yani qofka wuxuu leeyahay gabadh dhacreyn buu leeyahay khalad buu leeyahay gaf buu leeyahay wax ku aadan wax walba ka dhacaya laakiin asaasku waa inay diin waa inay jadal kugu jiro qodobka kale waxa weeye qofku waa inuu yahay qof Soomaali ah dadka la tacaamulayso waa Soomaali waxay leeyihiin sooyaal waxay leeyihiin suugaan waxay leeyihiin taariikh waxay leeyihiin dhaqan waxay leeyihiin culumo waa Soomaali qofku inuu yahay fahansan tahay waxyaabaha qofka Soomaali xukumi karin waa qofka lakabka isaysashada Soomaalida aan fahansaneyn yani aqoonyahan baan ahay iyo qabiil waan ka boodsanahay iyo waxa soo dhan yani wax waaqica Soomaalida ka shaqeyn kara ma aha waxa la rabaa qof isu tawaasuno ama isu dheelitira yani qabiilka dhaqanka diinta soo jireenta dawladnimada waxa soo dhan qof isu dheelitira la rabaa qofka duu dhaho Soomaalinimada iyo say Soomaalidu dhisan tahay iyo reeraha ay tahay iyo beelaha ay tahay iyo يعني بقولكيه بقول وان كتجيا أما وان كبوديا حد ما أنت نن معناها واقع أو حقبان كرماها مركو حنا رأينا هو قف صومالي ده أسوه يقان قياب كسباو لسنت هاي يسوي هايستو يبالو سيسول الدجان يسوي وراله ويهين يسيل لسوق حرو يقف صومالي مركو ما سأ أنا أقولها الله خطاب كقف كان أقولها الله وامحي صارهان وإنه قرنا يقفك مركو الشيخ حنبلي أتجو waxa uu kala hadlayo waa inuu garanayo ani markaan u galo waa inuu garanayo waxa uu kala hadlo ninka aniga ugaaska ama malaaqa ama duubka ama suldaanka markuu galo waa inuu garanayo wuxuu kala hadlayo horta qofku inuu qof garanaya aqliyada Soomaalida lagu hadlo sooyaalka Soomaalida waa inuu garanayo iyo inahaasaan u maleynaa kulli inkastoo sheekhu uu tafaasiisha dhan uu sheegay oo loo baahnayba in la sii sharaxo laakiin aniga waxa ila tahay tilmaamahaas qofkii laga helo ayaa mudan in Soomaali wax u qabto aad baa umahadsantahay sayidii tilmaamo aad waxaa sheegtay muhiimka ah oo dhidibba u ah laakiin saa sheegnay Soomaaliya markii mashhadka siyaasiga Soomaaliya la joogo waxyaabahaas oo dhan saa sheegtay wax miisaali ah waa waxa waaqic ahayn oo ka fikireen sida lagu keeni lahaa daawadayaal faasil yar dhextaal ayaan galaynaa waana isku soo noqon doonaa barnaamijkeenii yaa mudan halkiis ayuu ka sii socon doonaa nala socod si aad wax badan uga ogaato Turkiga la soco baraha kala duwan ee Miss Soomaaliya soo noqod wanaagsan daawadayaasheena qiimaha badan waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijkeenii yaa mudan oo aan kaga hadlaynay xaaladda doorashada Soomaaliya Sheekh Hanbali waxa bilowday doorashada xildhibaanada ayaa bilowday doorashada waxa ku geedaaman saa sheegteen xaalad musuq oo baahsan oo inaan la qiimeynaynin yaa mudan inaan la qiimeynin yaa inuu bulsho u adeego aan la qiimeynin kaliya waxa lagu qiimeynaya ay tahay intuu lacag haystaa intuu gadan karaa madaxyada intuu gadan karaa kaaba qabiilada uu lacag siin karaa ergada soo dooranaysa intuu lacag siin karaa waxa kaliya oo shaqeynayo waa micyaarkaasi lacagta arinta iyada see looga tanaasuli karaa sidee looga gudbi karaa mushkiladda iyada caqabadaasi taagan baarakallahu fiik waxay ila tahay horta waxaan hadda talooyin anaga aan sheegayno aniga iyo ustaadka iyo aqoon-yahano badan waxay sheegi doonaan culimmadan horeyna uga hadleen hadda kadibna ay ka hadli doonaan hadalka oo dhan wuxuu ku socdaa annaakhib qofka wax dooranaya mas-uuliyadda isaga ma hadda saaran tahay lan doorashada waa doorasho dadban doorashadii hal qof iyo hal cod ma aha marka hadday saas tahay ummadda waa lala sii hadli karay oo waa la oran karay
warsaa iyo saas wax ku doorta laakiin dadkan ergadan la soo xulayo ee hadhow labada golaha sare waxaan u malaynayaa muxaafadaadka iyo gobolada maamul goboleedyada ayaa door weyn ku leh laakiin golaha dhexe ergada la soo xuli doono weeye wuxuu hadalkan ku dhacayo waxaa markaa looga bixi karaa alla ka cabsigii aan sheegnay mas-uuliyad inay tahay in la ogaado damiirku inuu shaqeeyo caqligu inuu shaqeeyo waxaan inay taariikh qormaysa tahay inaad ogaato qofkii adigu aada soo magacowday ee ama aad reernimo ku dooratay ama aada lacagta ka qaadatay ayaa laga yaabaa intuu golaha baarlamaanka tago inuu sharci jideeyo sharcigii waxaa laga yaabaa inuu 100 sano shaqeeyo yaa suurtagala marka masiir ummadeed uu qariraya masiir ummadeed buu qariraya kii soo doortay ee odayga ahaa ee laga yaabo inuu xoogay shilmaha ka qaatay ama reer ahaan ku doortay baana laga yaabaa in ay mas-uuliyadaasi ilaa qiyaami saaca qoorta u sugnaato ilahay hortiisana ay u sugnaato marka in qofka damiirkiisa lala hadlo in ay suugaanyahanadu culimmadu hadlaan oo ay suugaanyahanadu hadlaan oo abwaanadu hadlaan oo damiirka qofka Soomaaliga lala hadlo qofka khaasatan qofka wax dooranaya in lala hadlo ayaa looga hortagi karaa musuqmaasuqan iyo caadadan xun qof ibn aadam ah oo intuu lacag qaatay wax uusan marka horeba xaq u lahayn ayuu intuu lacag ku qaatay buu haddana qof xun u dooranaya haddii marka qofka uu gabay inuu ilaahay kelmadiisa kor u qaado oo uu dowlad islaam dhaliyo oo kitaabka ilaahay shaqeeyo sunnadii nebi maxamed ee nadiifta ahayd ee daahirka ahayd ay shaqeyso hadduu gabay waxaa weeye haddana inuu ka taga ma aha waxyaabaha waxbay ka fiican yihiin akhafu dararayn baa jira marka in waxyaabahaas laga taga ma aha labadan qof haddii laba qof inaad kala doorato ay tahay oo labadan ay kala shar yar yihiin midka sharta yar waa inaad doorataa hadday kala khayr badan yihiin ka khayr ka badan waa inaad doorataa marka midka mas-uulka inaad doorato weeye mas-uuliyadduna waxay ku dhacaysaa dadka wax dooran doona ama ha noqdo maamul goboleedyada ama ha noqdeen ergada la soo xuli doono waxaanan u malaynayaa annagu dad Soomaali baynu nahay waynu wada hadalnaa bulshada Soomaaliyeedna culimmadeedu way ku xidhan tahay waxaan u malaynayaa in ay culimmadu usbuucyada soo socda bilaha soo socda inay wadaantooda ridan doonaan laakiin khitaabkoodu xagee ku socdaa weeye khitaabkoodu waxay ku socdaa markii ergadu soo ururto ayaa waxaa weeye waxaan u malaynayaa waxa calaa dharaariha laga dhigi doonaa oo nin walba waxa uu mudan yahay iyo mas-uuliyaddan iyo siday tahay dadka Soomaaliyeedna runtii waa dad ay diintu ta'athiriso waa dad kelmadda wanaagsan ay ta'athiriso waxaan rajaynayaa inay arintaasi hirgeli doonto biidnillah culimada hadlaan ayna culimada hadlaan insha Allah waxaan rajaynayaa barnaamijkan ayaa mudan inaan ku casuuno culimo badan oo khadka nagala soo xiriiraan oo si toos ah aan ugu casuumi doono culimo badan oo magac leh iyo aqoon-yahanada barnaamijku fikradu waxaan baarsan yahay in la gaarsiiyo ra'yiga caamka ah oo shaaric ahaana la dhiso waxaan baarsan yahay Ustaad Xasan sheekh soo sheegay waxaa qayb ka ah mushkiladan in la xalliyo musuqa waasica diiniga qofka inuu leeyahay wax cilmiya adiguna waa sheegtay sida sheegtay dad badan oo tartami lahaa waxaa ka hor istaagay xaaladaasi maxaad lacag haysataa oo wax kale la fiiriyay mushkiladan sidee looga tajaawuzi karaa sidee looga gudbi karaa mushkiladan mushkiladan runtii waxay u baahan tahay aragtidayda dhowr qodob oo isa saaran ay u baahan tahay horta marka koobaad in Soomaalida la fahansiiyo qofkan ay dooranayaan iyo processkan ay marayaan iyo meesha loo socdo iyo waxa ay tahay dawladnimo iyo sababta uu qofkan u dooranayo horta qofka inuu fahmo yani waxyaabaha aan qofkan u dooranayo xildhibaan baa hadda aniga imitali doon beeshayda ani xasan ahaan nin baa imatalaya ninkaas marka aan raba inaan doorto maxaan u rabaa inaan baarlamaanka Muqdisho horta qofka ugu diro waxaan u rabaa maxay sababta yani waxaan rabaa in nolosha iyo meesha aan ku noolahay iyo deegaanka aan ku noolahay uu qofkii u doodo oo qofkii matalaad weeye Soomaha oo qofkii matalo oo qofkii isbitaal iyo caafimaad iyo biyo iyo waxbarasho iyo nolol iyo qofkii deegaankiisa u sameeyo inta awoodo qofkii inaan la xisaabtamo oo og yahay berri marka uu soo laabanayo inaan la xisaabtamayo ceelaho qaday iskuul la xisaabtamayo laakiin ninkan marka uu aniga codkayga iga gatay fiiri codkayga iga gatay maxaan qofka kula xisaabtamaya xaq kaliya leeyahay kanaakhib qof wax dooranaya waa inaan qofka codkayga siiyo anoo og in berri uu iimaan doono haddii waxa aan rabo uu sameyn waayo aan dooraneen laakiin haddii awoodii kaliya ee aan lacag ku bedeshay seeban aniga nin
boqol kun 200 kun 1 milyan 2 milyan 10 milyan kursi ka bixiyey seebaan ani hadhow ula doodi karaa asagiiba 1 milyan u baahan inuu soo ceshto asaga u baahan inuu soo ceshto aniga xuquuqdii aan lahaa waan gatay يعني وحي الله هاي حقها marka xaq deegaan dhan uu lahaa oo deegaan oo kumanaan qof ku noolaayeen ayaad gadatay yaa gadatay xildhibaanka hadda hadduu yimaado xildhibaan Soomaaliya oo dhowr ani kursiga waaba gatay meel ani horta meel doortay mise waa gatay kursiga wuu gatay qof waxaan u baahanahay marka horta kala gadashada inaan joojinaan u baahanahay nin lacag ka sameeyo doorashada yani boqolaal kun haddaad qaadato min doorasho intuu lacag ka sameeyey ka faa'iidin ma jirayo yani waxyaabahan oo dhan kugu soo gelaya si dadban oo shaqo la'aan ah oo aan qurux badan kugu soo gelaya saas un badan asaasi ku baxayaan marka waxaan u baahanahay horta qofku inuu fahmo war xaqa aad leedahay adiga ha gadanin tusaale ahaan waxay la mid tahay in aad xanuunsatay irbad soo gadatay isbitaal ka soo gadato adoo og irbad dhacday inaad soo gadato oo aad lacag ninkii lacag ku soo dhow lacagtan qaado irbada dhacdana qaado yani adigii baa naftaada dilaya waxaan u baahanahay qofku balko inuu ogaado xaq uu leeyahay maxaan xildhibaan uga baahanahay maxaan madaxweyne uga baahanahay maxaan wasiir uga baahanahay maxaan nin deegaankayga ama beeshayda aniga matala maxaan uga baahanahay horta waa inaan ogaado taas ayaa waxay xadidi kartaa in ugu yaraan waxan ma dhamaanayo yani hadda iyo beri dambe iyo sanad iyo laba iyo doorasho socotay ma dhamaanayo laakiin wuxuu yareyn karaa khatarta ah in boqolkiiba boqol dadka meesha imanaya kulli ay lacag wada xisaabtamaan waxaa la heli karaa in la helo 30% doorasho soo socota ama 20% fahansan doorasho waxay tahay dhawr lacag ma rabo qofka aan rabo ayaan u codeynaya ayaa la heli karaa marka waxaan u baahanahay qofka in loo weysi xaq uu leeyahay yani adduunka waa la yaab qof xaq uu leeyahay iska tanaasulaya inta xogaa yar lacag qaato adigana macno kuma sameynayso qofka la doortayna xataa maanta ninka madaxweynaha noqonaya kursiga tagaya markuu 5 milyan 10 milyan 2 milyan 3 waxa doonta uu kharash gareeyo qofkii yani لازم lacagta inuu soo ceshto ama ahaw mi shariifa la dad ka soo qaaday marka hore asaga ma lahayn yani ma lahayn dad baa dhistay marka ninkan adiga kuwa matalo wuxuu matalaa dadkii uu lacagta ka soo qaatay ayuu wuxuu yahay abd adoon buu madaxweynaha Soomaaliya noqonay waa adoon laana lacag asaga ma laha shirkado iyo shakhsiyaad iyo dawladaha maalgeliyay marka dawladahaas iyo dadkaas waa in xakam ugu jira lijaanbi ku hayaan marka waxaan u baahanahay horta inaan ogaano lacagtu in inaga ayna dilayso anagana dilaysa xaq alla leeyahay dhaafinaysa sharafteena ma dhaafinaysa matalaadi aan lahayn ayna dhaafinaysa waxay meesha geenaysaa qof aan mudnayn ay meesha geenaysaa lacagtu meesha hadii ay lacag la'aan ahaan lahayd laga yaabo qofka saxda ah inuu meesha tagi lahaa marka waxaan yani waxa koobaad ee asaga day karo qofku inuu dawladnimadu waa inuu fahmo diinta qofku waa inuu fahmo waxaan uu gadanaya inay tahay xaraan tahay waxaan inuu diiniyan waa inuu fahmo dhaqanka Soomaalida waa inuu qofkii fahmo oo ah qofkii inuu san de sharaftiisa uu san dhuunayo waxa yar lacag uu san dhaafsan waxyaabahaas dib isugu geeyayaan aaminsanahay in doorashooyinka soo socda ay wax ka qayb ka noqon doonaan hadii la yiraahdo inta waxa ku darayaa in la helo nin inta lacag la'aan lagu doortay dadka wuxuu qabtaydan in la helo yani midaal uu tusaale ugu noqdo si uu tusaale ugu noqdo aad baad u mahadsan tahay fadiilada sheekh maadaama kaaba qabiiladii ay ka yihiin masiirkii ay qarirayaan saad sheegtay masiir ummadeed ummadda Soomaaliyeed masiirkooda maanta qayb badan oo kamid ah ayaa gacanta ugu jiro awood u leeyihiin wax bedelaan fariinta aad u diraysa maxay tahay uga soo jeedinaysaa inta in ilaahay ka baqaan inay ogaadaan waxaan in la weydiin doono fariintan u diray waa taas inay ilaahay subxaanahu wa tacaala hor istaagi doonaan lana weydiin doono waxa ay samaynayaan waxaan u malaynayaa kolba koonkan ilaahay baa iska leh Soomaalina koonkan ilaahay bay ka mid tahay yafcalu Allahu ma yashaa waxaan u malaynayaa in uun dhib kastoo yimaada xuluulna waa iska leedahay hadda waxaa caadi iska noqotay in la yiraahdo lacagtuna waa qaadasho doorashaduna codkuna waa ninka mudan marka dad fara badan waxaa jira intay lacag kharash garoobeen haddana waxa weeye ku ceeboobay oo khasra dunya wal aakhirah wadaalika huwa khusran al mubin dunya akhraba marka aakhirka waxa aan ku hurayn xabaal iyo ninkeeda loo kala tag Soomahay waxaan horta waa mustaqbalkaadi waa mustaqbalka caruurtaadi waa mustaqbalkaada labada daarood aakhiriya adduun wa fawqa hada waa lagu weydiin والله الذي لا إله إلا هو إلهي سبحانه وتعالى يا أديجا وحاول سؤال سؤال قويدين هذا مركا هذا فرصة مركا شرتها ذنوبت إلهي أتكجشوا إلهي سبحانه وتعالى توبض بكل دافع لكن قرن دم ذنبي أتكجشي ومد دم ذنبي أتكجشي وحاول سننك إلهي كوني جاء وحوي كتجان
inay iyagii intay wada yimaadaan ay ku wada cafiyaan ma ogiye inaan cidna kaa cafin karin marka aniga waxay ila tahay doqonnimo waxay ila tahay mas-uuliyad xumo waxay ila tahay inaysan odaynimo ahayn dhaqanka soomaalidana ma qabo soomaalida waxay dhihi jireen walba saas dhiig walba waad noo soo laakiin dhar ha noo soo jiidin noo soo hoynin yani waxyaabo noocaas oo kale Soomaalidu way ka xishoon jirtay runtii marka inay ilaahay ka baqaan ayna ogaadaan waxani inuusan sidaas ku tagaynin ee la saga daymo ama adduunyada lagu xisaabtami ama aakhara ayaanba hadda fogoyn oo ishiya kaabiga ah farintan u diray wataa نسأل الله العافية. أدو ما سنت فضيلة الشيخ أنت أنا كبحين وحارب حسن قرنا ويدي قف كصومالي إيه مركو بنانك جوب وصن حل قبن وأقوياهن وبروفيسور ودكتور وحول بعده كشخص أهنتيس إن بدن وحيش عندك إنه ناجح يا قفكي وحو سما يسكر وكنا لكن مركي وحلقة بتاع عام إيه فشل أيادع ما بيئة أما environment تجو وتجي أياهن بس قفك صومالي فلسفة كلا كده بيسوي إنه سنبو عمل جماعي وسسمين كير نضل إنه حلا لقبته محسن horta Soomaalida waxaa jira hadal hays badan aan sax ahayn Soomaalidu waxay ku leeyihiin aqoonyahan baa tahay maxaad wax u samaysay ama maxaad salahan aad qof u taageertay ama maxaad reerkiina xataa aad u shaqaysay ama maxaad qabiil u hadal qofka aqoonyahanka bi'adiisu kamid yahay yani maanta professorka Soomaaliga ah ee Soomaaliya ku nool waxaa saameynaya dagaalka waxaa saameynaya qabiilka waxaa saameynaya saboolnimada waxaa saameynaya nolosha waxaa saameynaysa absida waxaa saameynaysa argixisada yani boqolaal wax ayaa saameynaya saadartee la mid ma aha fikirka qofka professorka ee maanta magaalada joogna Istanbul ku nool oo kale ma aha saadarteed qofka ama sheekh ahaw ama ganacsada ahaw ama aqoonyahan ahaw waxaa la noolaanaysaa deegaanka aad ku nooshahay qaab fikirkiisa ayaad qayb badan oo kamid xambaarsan tahay ama adigu ogow ama ha ogaanin haddaad diido waxaad noqonaysaa qof ka soocan bulshadii oo meel gaar isku soo xiray qofka Soomaaliga ah marka badana waayo aragnimo la'aan ayaa jirta qofka kuma baraarugsano xilka iyo waxa ka horeeya wuxuu kuma baraarugsano ma yaqaano waligii ma qabanin ma garanayo saadarteed wuxuu ka sheekeynayaa waxyaabo waaweyn oo qaban karin صراحان مدحدي soo martay dalka marka koowaad ee ay xilka madaxnimadu u ordayeen iyo marka labaad tartamayaan ma isku halaysba ma aha laana marka hore wuxuu u haystaa waxba u sawiran wuxuu u haystaa sida uu xaafadiisa u maamulay inuu maamul karo dawlad yani fiiri ay madaxweyne oo Soomaali imaada dalka wuxuu u maamulaa wakaanu masraca liwaalidi beeriyaro aabihi leeyahay hore inuu maamulo maada iskale ma ku darsatay ma jamaacad kamid tahay ururkeed tahay yani waxa la rabaa in dalkeedana loo maamulo group yar oo ay dal leeyihiin meesha la rabay in ummadoo dhan ay soo imaato waxa kamid ah qofka marka uu tartamayo dhaqaale ma haysto way aragnimo ma haysto xisbi weyn oo ay kumanaan qof ama malaayiin qof ay ku jiraan ma haysto lacagta uu ku tagayo waxa iska leh fulaan iyo callaan hebel ba iska lacagta ku tagayo aqliga ku jira marka uu ku fakirayo waa aqliga hebel ama dawlad hebla iyo waxa ku fakirayo saadarteed marka aan banaanka joogo ee aan xasan ahay culays ima haysto mas'uuliyadda reerkayga saaran yahay iyo dadka ehelkayga qaraabadayda ah أنا تصرفي يساء النولاني لكن مركان دو حلبان رادينيا وين أذكوا يمادون دو العكسي وين الشيخ أوتو وين الدولة أوتو العكسيان كل قرارات كيجان إيجا كمسؤول أنا قرار قار مقادا كرو تاس وهي تعقولها هي مرحلة العقد إشراء الذمم كأن لقى بحمو يعني قفك الصومالي قال إنه مدحوين أنتو كرسي كفر يستو مستقيم نقضه أو سيدا أرنو شقي وقت كانسا لأن كرسي كفر يأسيقا مبلبا كرسي كفر شخصية دي سكليه إيش إدرك أو قبو كليه لكن قوان كيس يقرأ قلن كوساو هيو قيبتا دنب والله هيستا لأنه قلن كدد با وديبي قلن كان أساقا ملها marka ilaa aan gaarno xilli qofka Soomaaliga ah oo waxnimadiisa iyo dadnimadiisa iyo aqoontiisa uu ku soo baxo saas noqonaysa labo bi'ada lagu shaqeynayo waa bi'a faasida aan isaan aaminsanahay dawladnimada waxba iska maana weydiinin horta dawladnimada inaga maanta noo jirta ma tahay dawladnimo inaga noo eg ma tahay dawladnimo qofka Soomaaliga uu ku najaxay ma tahay dawladnimo malaamixdeena iyo muuqaalkeena wata ma tahay dawladdu ma tahay wax inagu aan fahmi karna ma tahay يعني دولة أنا هيسنو مسوا دولة رجال بيل لقى من جورية أو صيء هلو سو من جور فيري جيت كمان إسطنبول كبحة كسماية ما كبحكرا كمان بحيرو بيئة كل دون دجان كل دون عرضة كل دون نوشة كل دون صادرت وحي أنسو من جورن السيء هيد
weli dowladnimo aan fahmi la'anahay لأن كل 960 كي سومالي مركي حرمة قادتي 9 سنة وحيد مدني 9 سنة وكوربشن يو مسوق يو أحزاب قبيلي يو حباب ليس لها 20 سنة كحكتي سومالي إيش شيء جنيه دكتاتور يو حوق يو عيدا يو أفجبي كش جنيه صدق سنة اللي وجرا دجال يعني الدولة النمذج أيام حوبها هنا ورت دبي أنا قلنا قلنا أو أن الدولة النمذج أن كدقنا واحد نجار نوئج أو نلاقج أو نقاعد كرتا أو أن فهم كرنا أو كوقة نقن iyo diin waxa lahayn waxaan rabaa fikradii ku daro su'aashaad weydiisay sheekha adduunka oday dhaqameedka Soomaalidu waagoor waxaa jira dad qable oo hal leh oo dadnimo leh oo Soomaali ah oo wax ahaan jireen hadda waa dadka qaadanaya markii la dhaho dawlad Soomaali hal dhiso qofka koobaad loo yaro waayo waa ka qabiilka waa suldaanka waa boqorka waa ugaaska waa wabarka waa Soomaha markii dawladii la dhisan qofka u horeeya la tuuray waa asaga يعني وجرانجرو وجرانجر وأضو وجاسة أو سلطان أو إمام أو بقرة أو ضد كون صومالي قبائل الذي مسؤول كأ أو دولة نمو لا أنت أيديس بيدين سبب أو قلات إن سياسي فاسد أظن نقطة جرانجر وحكوا جارو أضياش أنا حديه لها ما دام الدولة نمو اللي وش يجيب الدولة نمو الصومالي هلو حبا أصل كأ أصل كأ وقبيل قبيل اللي أصلوه أضيب أصلوه سادرت الدولة نمو الصومالي ده وأصلوه odayaashaas asal u ah war ha ogolaanin in dawladii aad tiir kuwa ku dhisan tahay wax dheefna ka soo gelin tala aad ku yeelanin ra'yi aad ku yeelanin waxba aan laga weydiinin sida dawladnimadu kugu dhisan tahay maanta madaxweynaha ninka ragga tartamaya qofka uu tagay waayo waa beeshooda Soomaha maanta madaxweynaha ku fadhiya kuwii ka horeeyay ka imaan doona dhul beeshiisu matala yani ma jirto Soomaali matalaayo waa hadal يعني سوماليا هم مثلا وسجود سوماليا هذا صوت دورتان لكن مكو ماشي كفر يستو بلشده oo dhan buu wada مثلا يعني هم مثلو لكن qofka uu ka socdo kursiga qof walba ku fadhimaan Soomaaliya qabiil baa lagu qabsaday reer buu ka socdaa marka waxaan rabaa inaan ra'iisul wasaaraha kursigiisa odayga iska leh inuu kula xisaabtami karo madaxweynaha uu kula xisaabtami karo baarlamaanka wasiirada xildhibaanada odayaashu doorkooda ay leeyihiin ee laga qaadi karo madaxweynaha waa la bedeli karaa على ذلك قبيلة هدي هجاجان هدي وحبة هجاجان كرها لأن أصلا أضيق الصوماليات باديها جوا عمدا إسكوا تبعوا سحرا أيها أصل الصومال لماذا وحول الربين مصعونيان صادرته وإنه فهم سياسي أي شو وإنه جراد يشو وإنه النمن كان لا حساب طبعا أصلا النمن كان كرونا وحصل مجرو أدبو ما سنت هاي الشيخ حنبلي محمود رئيسة وان سوق بجميع من حلقة دينا ما وحين قلب إلى هاي مرحلة هذا أنك هذا لأنه مرحلة دور الشغل ضبن way ugu adag tahay ustaadkan inuu igu waafaqdo noomana way ugu adag tahay inaan hadda rumeeyo inay marxaladda kale soo socoto aysan doorashadu noqonayn one man one vote waxaan rajaynayaa in un hadda la yaraha dulqaato rabbi sallim marxaladan iyada ah waxaan rajo weyn ka qabtaa in marxaladda soo socota inay noqon doonto marxalad ay noqon doonto yani ku dhisan inuu qof walba inuu isagu inuu codayn karo marka iyadaana markaa dee axsaabtii iyo mabaadi'dii iyo qiyamkii aynu lahayn iyo diintii un baa shaqayn doonto markaas caalamkuna waxyaabaha uu noo diidan yahay inaan midaas inaan gaarno weeye xitaa dimuqraadiyada ay sheeganayeen way noo diidan yihiin marka taasi intaan ka gaarayno rabbana yastur ilaahi subxaana wa tacaala marxaladan hana asturo aad ba umahadsantihiin dawadayaasheena qiimaha badan barnaamijkeena yaa mudan oo ay gala qayb galayeen fadiilada sheekh daaciya sheekh cabdalla xambali iyo ustaad qoraa Soomaaliyeed ustaad Xasan Qorane intaas ayuu inoogu ogyahay haddii uu ku dhaafo xalaqaadka barnaamijka waxaad ka daawan kartaa barta YouTube ka miiska Soomaaliya iyo sidoo kaleeto barta Facebook tan iyo intaan ka gaarayno xalqad cusub iyo marti cusub waxaan idin leenahay fi amaan illah